taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika oo ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay inay duqeymaha ay ku dileen ku dhawaad 13 ka tirsan maleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab oo ku dhuumalaysanayay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayayna sheegeen in lagu dilay duqeymadan ayaa qayb ka ahayd duqeymada dhawaan ay Mareykanka ka fulinayeen Soomaaliya ayna kadib bilaabeen aysan dhici doonin beedeen in qaybo kamid ah Soomaaliya ay ku dhuumalaystaan Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada African ee Mareykanka oo ku sugan qaybo kamid ah Soomaaliya ayaa muddooyinkii daba waday dhaqaaqyo ciidan iyo sidoo kale isla markaana baacsanayay haradiga Al-Shabaab si looga saaro deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. taliska ciidanka Mareykanka African ayaa si rasmi ah u sheegay in ay 13 askari ay dileen isla markaana si rasmi ah loogu shaaciyay bartooda baraha bulshada isla markaana ay sheegeen inay wali soo doonaan howlgalka ballaaran ay ku baacsanayaan kooxda Al-Shabaab isla markaana laga saari doono deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. saraakiisha ciidamada African ee Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkaasi la sii laba jibaari doono maadaama ay jiraan in howlgallo kale laga furin doono deegaano ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan. howlgalkan ay ciidamada African ee Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ay sameynayaan ayaa howlgallo waaweyn oo isla markaana deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya iyo Hiiraanba ay ka wadaan si looga saaro Al-Shabaab oo deegaanadaasi ku dhuumalaysanaysa. ciidamada Mareykanka oo qayb ka ah ciidamada ammaanka guud ee Soomaaliya sugaya ayaa muddooyinkii dambe waxay wadeen howlgallo waaweyn isla markaana lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab si looga saaro deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya. ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugan ayaa sheegay in duqeymada ay cirka iyo dhulkaaba ay ka geysan doonaan Soomaaliya si looga saaro qaybo kamid ah Al-Shabaab oo ku dhuumalaysanaya deegaanada Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa inta badan waxa duqeymaha cirka iyo dhulka u geysta ciidamada Mareykanka ku sugan Soomaaliya isla markaana kamid ah howlgalka ciidan lagu sugay ammaanka guud ee Soomaaliya. madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Mr. Joe Biden ayaa hore u sheegay in ciidamo tiro badan loo diri doono Soomaaliya si loo sugo ammaanka guud ee deegaanada ka tirsan Soomaaliya ay wali ku dhuumalaysanayaan koox ka tirsan Al-Shabaab. 13 ka tirsan maleeshiyadka ururka Al-Shabaab oo si rasmi ah ciidamada Mareykanka ay African u sheegeen inay dileen ayaa sheegeen inay ku dhuumalaysanayaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. howlgalkan ay muddooyinkii dambe ay sameeyeen ciidamada taliska ciidanka Mareykanka ee African ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwa qorsheysan isla markaana si rasmi ah looga fulinayo Soomaaliya. isla markaana ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay inay wali soo doonaan howlgallada maadaama ay jiraan in deegaano badan oo hore looga saaray Al-Shabaab isla markaana duqeymo kale oo hore la geystay. 13 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa tiradii ugu yareed oo ciidamada Mareykanka ee African ee Soomaaliya ku sugan ay dileen waxay sheegeen inay ku jiraan saraakiil sare oo ka tirsan maleeshiyadka